السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا مركز اليوم مغالكينا ولي waxaan ku guda jirnay koorskeena Adobe Photoshop CC 2024 caawa ama maanta casharkeena waxaan ku qaadanaa sida loo sameeyo logo ayaan ku qaadan tusaale ahaan hadda logodan amal ayaan sameynaa waxaan tagaynaa softwarekeena tagana kadib file aan leenahay new and leenahay maadaama aan sameynaa file cusub inta badan markii la sameynayo file dabcan waa taqaaniino sharaxaad ma baahno halkan waxaan qoraynaa logo magaca u baahsan daarti shirkadda aad u sameynaysid ama waxa client magaceeda ayaad u baxsan kartaa aniga logo inbox dhigi doona unit waxaan dooranaynaa pixel kadib waxaan ka dhiganaa widthkiisa cabirka 800 ilaa 800 aan ka dhiganaa inta badan waxa waaye default maaha logo size cabir kala duwan la qaataa 800 waa qaadan kartaa 1000 waa qaadan kartaa adiga marka had waxay ku xiran tahay adiga idoo qaad inta waxaan ka dooranaa RGB color maadaama ay yihiin wax la dhigayo social media ama logo la saarayo okay colorkan waxaan ka dhiganaa white aan ku sii deynaa okay resolution waxaan dhigana 300 maadaama la rabo in quality-geedu uu fiicnaado ama high uu ahaado loo baahan okay ani marka save aan dhigi doona waxa rabaa marka la project-na sameeyo save aan dhigi doona adalka meesha ku joogo okay inta marka aan create aan leenahay create marka dhahno kadib waxaan u baahnaa logan ka fureynaa waxaan u baahanaa inaan soo qaadano rectangle tool aan soo qaadanina shift anoo la haayo halkaan ama la keeni doona كامل جي علينا انت مركز جوكتيد وحان سمين دونا مركز alignment يا انتقي دونا هالمر هكذا alignment واحد على center كوكو ادي ده center كوكو ادي center كما دام كوكو ادي هاي حد وحان سمين انا كلر كي ميت كلام سمين انا كم مركز دام انا سمين شيء انتقينا شيء بكتره بركو وحان سمين انا ستروك كلر او سمين انا وحان ودي دونا كلر كان ورجينا كدو هوا الا انت ما جالسيننا الا انت ما لقيها لنا okay inta aan sameeyay layers hadii aan tago hal haba iga muuqdo marka mid kale rabaa inaan sameesto control J layer oo copy mid kan waxa fill 1 waaye ellipse 1 waaye kana waa ellipse 1 oo copy-giis waaye okay waxaan sameeynaa marka kana tagayna waxaan sameeynaa control T leenahay kadib waa yareynayna shift anoo la hayno waa yareynayna hoga ila meelaha amal gaarsiin okay kadib waxaan sameeynaa halkaan tagayna kadib waxaan alignment soo qaadanaa halena center ku aadi انت السنتر كو ادي علينا سنتر كو ادي انت تقو حالنا انت كو ادي كدب سنتر كو ادي ده سنتر كو ادي اوكي وحارمنا marka qoraalka inaan soo qaadano qoraal arabna inaan ku sameeysano waxaan sameeynaa halkaan tagayna tiidaan soo qaadana kadib waxaan sameyn doonaa halkaan kale ku siin doonaa si automatic qoraalka asaas wareejin doonaa marka maadaama qoraalka fartiidu zaad weyn yahay saaskan tagi doonaa waa yareyn doonaa ilaa meelahaas amal ayaan gaarsiin doonaa ilaa halaas gaarsiiya leenahay ilaa halaas gaarsiiya wali waa weeyahay hadaan kligda iskira ilaa intaan gaarsiiya okay marka waxaan sameeynaa qoraal halkan qoraynaa inbio aan qoraynaa halkan waxaan leenahay inbio qoraalka waxaa laga yaabaa inaadan arkeynin sababtoo ah background color-ka uu leeyahay qoraalka uu color waayo control A dheh select color-ka ka bedelina waxa dhigana color-kiisa white ka dhigana sawa aragtid okay hadda waxaan jeclahay in loo jeedo ama la arkaayo color-ka la dhigta stroke noo dhig color-kiisa okay color-kana ka dhigay maxaa rabaa inaan sameeyo qoraal rabaa inaan qorto halkan waxaan sameyn doonaa waxaan qori doonaa inbio leenahay inbio primary and secondary school alena is school halkaan wax qorana inbio primary and secondary school okay inta markaa joogno waxaan rabnaa markii aan sameeyno wax yar kana geeskan oo sakinayna control waxaa la hada tiide ku laabo ka markaa joogto waxaa sameeysaa inta markaa joogno waxaan sameeynaa intaan aan qornay waxaan sameeynaa file window tagayna halkaan waxaan ka dooranaynaa character halkaan soo qaadana character markaa joogno qoraalka anigoo joogno waxaan sameyn doonaa kana wax yar waxaan sameyn doonaa soo sakin doonaa hadaaltii farta waa ku dari kartaa cabirka aniga cabir ma rabno kana wax yar ku darayna okay qoraalkiina wax yar banaanka inaan bixiyaa rabay intaasaa rabay inaan sameeyo intiin waa sameey okay waxaan rabnaa markii inaan sameeyo qoraalka hadda laba qoraal waa hadii aadan ku dib ugu laabto inbio primary and secondary school waa dhinacan waay sidoo kale
inta waxaa qoran dugsiga hoose dhexe sare ee imbiyo qoran marka qoraalka hoose see meesha loogu keeni karaa waa su-aasha ugu muhiimsan ama meesha taala waxaa waaye kan horta fartaan ka bedelaynaa waxaan tagaynaa fartiisaan ka dhigaynaa bold ayaan ka dhigaynaa fartana haddaa adi arabti fartaad iska dhigo aniga mid una iska dhigin doonaa midaan iska dhigin doonaa aniga halkaan tag inkastoo midaan iska dhigin doonaa aniga imbiyo primary and secondary school oo qoran meeshaan marka waxaa rabaa mid kale inaan halkan keeno see meeshaan ku keeni karaa marka waxaan tagaynaa halkan markaa ujeedid meesha waxaa ku yaalo direction selection tool iyo path selection tool marka anaga waxaan soo qaadan direction selection tool soo qaadan doono halkaan ay imaan doonaa fartii markay saan isku bedesho waxaan samayn doonaa sorry marka hore move tool tag control z soo celi marka waxaan sameynaa magacaana copy ku sameynaa magaca hadda maadaama halkaan noo yaalo layers hadda fiirso control g leenahay marka copy aan ku sameynaa mid copy aan tagaynaa waxaan soo qaadanaynaa direction selection tool aan soo qaadanaynaa kadib markay fartii isbedesho saan amal ka dhigaynaa saan wareeji soo wareeji weli okay magacaana iska bedelayna marka magacaana kali daba kaligaa leenahay waa iska bedelay anaga soo qaad wax yar weli soo qaada leenahay inta keen ilaa meelahaas markaan inta keen leenahay ama inta keen okay inta markaa sameyno magacaana rabnaa inaan bedelno magacaana iska bedelayna magaca waxaan ku bedelaynaa waxaan qoraynaa dugsigan hoose hal mar waxaa tirtaa move tool tag kadib kusoo laabo kan double click ku dheh adoo tv soo qaadaayo double click ku dheh kadib waxaan sameynaynaa anaga halkaa markaa jiro marka magacaan iska bedelay magacaan ku qoranaynaa dugsiga hoose camalan qorayna dugsiga hoose aan leenahay dugsiga hooseda waan soo gaabsanaynaa xejaan soo qaadanaynaa calaamad slash aan leenahay dhexena waan soo qaabsanaynaa kadib waxaan leenahay imbiyo school ama imbiyo waxaan ku daraynaa imbiyo school ama kadhig ama imbiyo school amal intaas haddaarti ay arabiya gasho kartaa wax lala xarta gasho kartaa okay inta markaa jiro control a leeyahay qoraalka marka waxaan sameyn doonaa farta maadaama sizekeedu uu yahay 7 waxaa ku dari doonaa ilaa hoga ilaa waxaan gaarsiin doonaa 10 aan gaarsiin doonaa colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa noocan colorkeeda intaas yidhi okay intaas ku siin doonaa maadaama zaid uu yahay ku laabo wax yar yar ayaa leenahay sizekeeda wax yar okay intaan ku sameynana kadib waxaan sameynana wax yar anagoo joogno paragraphka waxaan sameynana hoos gudaha inaan soo gelinaa wax yar banaanka inaan geeno marno minus 2 ama dhigana minus 2 ama dhigana okay inta markaa joogto marka waxaan sameyn kartaa qoraalkeena fartiisa waxaan ku sameyn karnaa inaan ku badano ama inaan dheereyno kala dheereyno xogaa yar halkaan wax yar saan dheh okay kana tagaynaa kana siisan ku dhaafayna maadaama aan rabno muuqaalka inuu naga dheeraanin saas darteed isaan ku sii deynayna anaga kadib waxaan soo gashanaynaa waxaa u baahanaa inaan soo gelino caleentaan yar inaan soo gelino buugana u baahanaa iyadana waa idin soo diri doonaa xagga tagaynaa fail aan leenahay fail markaan dhahno kadib waxaan sameynaynaa play aan leenahay markaan dhahno place kadib waxaan sameynaynaa meesha noo aalo ayaan tagaynaa anaga hadda wuxuu ii yaalaa halkaan uu ii yaalaa laba resource document tag kadib laba resource halkaan uu yaalaa waxaan soo gelinaa caleentanaa soo gelinaa caleenta markaan soo geliyo kalarkeeda waxaa waa shiftan oo lahaayo waa yareyn doonaa ilaa halahaan ama la gaarsiin doonaa okay soo qaad inta keen maadaama zaid aan u yareynay xoogaan waa weyneyn doonaa halaas marku aadi halaana ku aadinayna okay halkaan markaan sameyno anagoo joogno loogada korkeeda waxaan sameynaynaa marka muftuul aan tagaynaa kadib hal effects aan taabanayna waxaan kalarka inaga bedelo color overlay aan leenahay color overlay markaan dhahno kalarka noo soo bixi doono kalarka marka si automatic u soo qabsan doona kalarka noo soo furaan leenahay kalarka waxaan ka dhigaynaa marka cagaar aan ka dhigaynaa cagaar oo weli waxaan ka dhigaynaa tagaan ka dhigaynaa inta badan caleenta waxaa laga dhigaa cagaar laga dhigaa kalarkan ayaan siinaynaa
okay kalarka markaas siino kadib waxaan leenahay okay aan leenahay waa ka dhamaanayna waxaan rabaa book inaan soo gelino bookina saa soo gelino file aan tagayna kadib place aan leenahay place markaan dhana book yaan soo qaadanaynaa haddaad videos waa soo gashan kartaa adiga jooskaada waaye adiga markaan waxaan sameynaynaa kan aad wax soo qaadaynaa waa yareynayna bookgaasina ilaa halaasaan gaarsiinaynaa intaa keenaynaa book halkaa markaa keeno laba option aniga iskale inaan kalar ka bedelno kalarka haddaan waa ka bedeli karna haddaan waan ku dhaafi karnaa okay waxaa u baahanahay blogyadeenna maadaama backgroundkeedu uu yahay white inaan background ka bedelaan rabnaa waxaan tagaynaa hoosaan tagaynaa hoos markaa tago waxaan sameyn doonaa halka anoo joogo waxaan tagi doonaa rectangle tool aan tagi doonaa kadib waxaan soo qaadan doonaa shape ama rectangle tool ayaan soo qaadan doonaa halkan ayaan kusoo wari doonaa halkan aan kusoo wari doonaa kadib maadaama kalarkeedu uu yahay kalarkan waxaan ka dhiganaa kalarkan aan ka dhiganaa marka qoraalkiin hadda farti waa qarsantay sababtan waxaa waaye backgroundka waxaa isku eg iyo farta kalarka isku eg saa darteed marka caddaan ka dhiganaa waa ku laabanaynaa kana waxaa ka dhiganaa kalarkiisa qoraalkan tag kalarkiisa waxaa ka dhigtaa maadaama kalarkiisa kalarka nooga dhigaa leenahay sorry hal yar aan wax yar bisaan bedelay asaga sanad gareey kadib kalarka waxaa sameysaa control 0 dhan markuu kaa dhaqaaqo soo celi kadib double click ku dheh waxaa sameysaa kalarkiisa waxaa ka dhigtaa leenahay kalarkan ka dhig sidoo kale kan waxaa leenahay naga bedelaa leenahay kana dul tag double click ku dheh shiibkeena loogada aan ka sameyn hoogaa qolooc ku jiro laakiin maadaama cashar aan sameynay naga muuqaalka inuu dheeraan diidaa saas darteed ma toosinin aad tartiibkaada waxaad u hagaajiso okay intaan aan sameeyey marka waxaan sameynayaa backgroundki aa tagaa hadda layerka tag kadib backgroundka igeey oo rectangle-kan waaye kalarkiisa waxaa ka dhigtaa blue kudhigaa leenahay blue kudhigaa leenahay okay maadaama blue ka dhignay rectangles haddii aan sameynaynay strogooda wuxuu ahaay strogooda wuxuu ahay blue marka strogiisaan bedelina waxaan dhiganaa kalarkaan aan ka dhigaynaa kadibna ilaa halaasaan gaarsiinaynaa anaga strogiisa strogu sameeyaan leenahay ilaa halaas gaarsiin okay marka kan tag kadib waxaa sameysaa strogiisa wax yaryaree waa ilaa halaas gaarsiin okay loogideena saana ku sameynay laakiin hadda qoraalkii aan qarsan qoraalka waxaa waaye qaabka usoo saari karna dabcan waxaa waaye maadaama qoraalkii dabal kaligaa leenahay qoraalkeena kalarkiisa waxaan ka dhigi karnaa halkaa markaan joogno waxaan ka dhigaynaa buluug aan ka dhigaynaa haddee waa qarsamay maadaama loogadii kore aan soo marnay kana dabal kaligaa leenahay asigana dabal kalig markaa dhano asigana kalarkiisa waxaan ka dhigaynaa buluug aan ka dhigaynaa labada qoraal saanay kugu soo baxeen cashirkiina intaa kusoo gabagabeynana aada umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu